kadib isku sheeg waan ray markay dambe waa isku sheegay waa sheekaysanay ay numberka ma isaf gareysnay mana aqoonin waa isoo way wuxuu yiri saaxiibow intaqanahay waa abaaro imaan weli oo san isku sheegin kadib isku sheeg waan ray markay dambe waa isku sheegay waa sheekaysanay danihiis kale uga hadlay wuxuu yiri saaxiibow waa sheekan kale numberkaada wax badan baa u soo maray way heeban marka warmaan aniga adigu wada hadli karnaa aan ku soo aado adiga isoo in mataqaana waxaan rabaa anaa ku soo aaw afarsa anoo markaas ugu yara farsano isleeyahay inuu shabaab ahay waa shabaab jirwaan uga markiis ninka ma soo goosan rabaa oo naqshad buu qaar rabaa mataqaana waduu soo marlay qaab ku soo bixin afartii sa markay heedan aniga waa أنا ما كان رأي هذا الضرب ولا قال هذا كله ضد الله أنا نن لله قلب سوء الشيخ الله ما هرسته حتى كهر أي أنت ودي تجلين أصلا قرابنا هي ولد يعني حتى كهر له يريد أنا وجوله أسوي جوله تقامه بقوله بر مركان له يريد وحن كل شيء فيستوي قرح برنامج متقانه فوزان سوء عسكري فوق درك الصوماليات إنه متقانه إنه صوت لحد جوله إنه شيء في التراب لقله وبرنامج أفضل wax walbo mataqaanahay markaas aan anaga qof bini aadan loo qaban lahayn oo ku qabanayna dhaw khayr Allah siiyo jannada Allah ku waraabay aldi soo sheeg wuxuu yiri marka anigu qaranka ma qiyaanayo ma jiro badda way ku kala jeedeen ninka asiga ah markii dambe ay dib u dileen marka ninkaas wuxuu yiri mataqaanahay hadda ka hor aan soo marnay saas teeda kale waxaan ka rabaa inaad shaqaysato mataqaanahay aniga xaway barbahinta waa la soo inkastoo hore isoo inaad shaqaysato xaway mataqaanahay wax walbo oo markaas adiga aad ku qabsan lahayn anaga aan ku balqaan adaa meesha loo joogo dhan walba aad wax ma furaysan doonina ana waa fikray daan lagu qiyaanana ma joogo mataqaana waxaan rabaa diyaar baan wax walba aad diyaar diyaaran ah hadii aad idinku wax qabad aad mataqaana diyaar ilaa ma waxaan ku badeynaa diyaaran lahayn taa wax qaban ka tahay hadii Djibouti tahay hadii mataqaana Ethiopia tahay hadii xoog dalka Soomaaliya meel aan gal karin Djibouti tiraat meel lama aqoon marka ninbaan kula xiriirnaa waxaan aaw barnaamijka ii sheegay waxaan soo bas gareynaa wax ii sheegin magar bariya marka soo weynaa baa isla saacada ay ahayd markuu asiga uga baxay waxaan waa ay sirgaal ka tirsan saraakiisha guud aan barnaamijka soo jiro inaad uga shaqeyso dowladda iyo qoraal inta aan sameeyno qaabkan ku soo dheeyay inuu ku qaban lahayn qofka dan qaayash asal dan baa laga yahay Soomaa ninkaas dan buu iga yeeshay aan danka yeeshan doonaya baa سرقالكي وقف حوار عن وايد بخير وشيء ما ينبغي. معلم في شقاقة متقنعها إذا كان هو ذلك هذا كير على هاد ومشغولة ماشي في سبب نمبر كان بس يسوي أنا خلاف هندسنا كحوش. معلم في لبيت بسائب بالله سلامة إنه وشك لا كده خلاف في وقت يصير. ما خد كان شتى عندي برنامج ماشي سكت أي ماشي في مشكلة سنا خلاف في ماشي حلا يسهل أصله واحد مغلوب وفقنا. ونوبه وقول. كذب متقنعها معلم في الدنبو سرقالكي وصوبح واي وحن لها يريد متقنعها وادن سلحتنا هذيك الدنبو مخرب كان أنوعي هذيك مخرب كذا مركان وأي وحن رميو أدنى ملاحظ فلا يفكر الآن متقنع ماشي من آلي ما أنتو حتى نشوف كلها مركان معلم قصوى أنا أدري الطوس أو ملو بسنة ما ضعف المجرى طبعا هذيك مركان الماضي ومتقنع هذا مجهولة متقنعها ماشي كذي وحن لك عشتي متقنعها ما نتجي أو بعد جتوي رامش كسادر متعصنا الله اللي سينا مشكلة كده هنا تقرأ شقة يسوع أو أنا أقول لك أنا مرات أسبرال وجوال أنت يعني مثلا أنا سام سوق قبلها تفشل منهم سمرة هذا أنا كنت بالي خلاص هذا قلنا على طول الفوم يريد قال قلنا هو سان كسوق قارني تلفون جوال ومثلا أنا بوق الله صوب عني أنت أي حبان مرحب ضد الصومالي السوق قبل كيان أنا صوب أنت كده أنا كفرني markaan qornay kadib ayaa waxay war ugu soo celiyeen markaan hoos u fadhiyo markaan laba magaciisa garan way mataqaanay ugu soo celiyeen laba jeer amal ninkaas oo la yiraahdo mataqaanay Xasan Jaamac ninka ama soo u saxay mataqaanay ana waxa yar garan way mataqaanay doctorka ila hadlo Xasan Jaamac waaqo waxa faraad u marka dhan walba ka sheekaysanay qaraxan hadda ay soo dhiibeen ay u soo dhiibeen mataqaanay تبلاد أقول كذا حاضر دار مركع وصل سيانة إنه حل قرح حل سجال وصراكيش هذا أنقو قرن كمدة يخلط الأسكري اسمه سيسنين يعني قرح عن سوق بالمكوس ويدي يخلط الأسكري وما قال عن حل سجال وصراكيش هذا أنقو قرن كمدة هذا كله يكون وقنا عصنا خاص درجة كل ذلك النقص هذيك ما كان شيء سنوها شو قموا يعني أنا وخان أنا في الحسود
gudihii ayagana difaac iga galeen waa isku daynay dhaheen subax waa isku daynay markay dhaheen salaada isoo waxay dhaheen ninkii qaraxa gudaha soo gelin lahaa ma joogeen mataqaanaa nambarkiisa naga baxay nin kale oo gabar la soo dhaafi karin mataqaanaa qaraxa loo soo dhiiba ilaa arin loo soo qaadan lacagta anaga soo fiireen wixii ballanqaadkeena markii barnaamijka isku horiyo is-aamino ee noo ahaan doonta noo soo qaado halka imaa adoon qori iyo xubin dhar ariga waqti noo soo qaaday soo dhaqaaq salaadii mataqaanaa ninka caafimaadka joogaan la hadlay waxaan janabka u tagay sidii meesha ciidanka ka soo baxay waa iga hormaray ciidanka mataqaanaa waxaan ciidanka mataqaanaa gambar laawo oo soo taga anigu askari kala igu haray bajaadaan qaatay bajaadii markay si socoto dhaha socotaan sidii waay iyadoo aan sinaada furan buruufteed maqashina baarku soo qaatay waxaan soo soo lacag soo furay $1 oo soo furay markaan ciidanka ku dhowahay aan bajaadi ku dagay $2 ku sii $2 u tuuray asigaan waxaan rabay ciidanka ku dhowahay waan shaqay inay qabtaan ka baqaan meesha ciidanka dagaha ka koro waa deegaan ee midiro beela isku dagaalay waxa jiro marka waxaan rabaa inaan wareeg dheer soo galo way hay soo maray dhan soo lugay ciidanka maray meesha ciidanka watay waa baxnay saan wareeg u soo isoo waayeen hada hooday ahayd mataqaana markaan meeshii markaas ku balansaneen aan u dhowahay aan ciidanka gaadhay ciidanka xoogiis waxaan marinay kor dabdibina u talgal ugu kaartaa naga qaldan dabdibina u talgal saddex askari watay kaliya gadiga hoos kaliya dhiga ay qabtay marka ciidanka kala cad uga hordhacay mataqaana meeshii aan ugu talagalay ka hormaraa mataqaana wadadii ayaga ay soo marayaan kaliya soo goyn lahayn marka warkii anoo soo gaadinayo meeshii markaan galay ayaga waxaan rabay gadi kala jooga soo bax markay soo baxeen oo soo dhaadhac ay leeyihiin meesha shacab marmaray mataqaanaa ciidanka ay soo dhax istaagay ciidankii markii waa garan waay inay shacab yihiin inay mataqaanaa marka shabaabkii aniga aan doonay ay yihiin kadib ayaga aamin waay bacdiyay dhahan ma dhignaa markay ku murmeen kadib bacdi fuureen markay organas ciidanka hadda ku bilaabay mar alla markii la beegsanayay difaacooda mataqaanaa hadda soo bilaabay meesha lagu dagaalay sideen ku baxsan ciidankii ay wadaan meeladu waa tanaa sidaas lagu keenay askariga ay la xiriireen waa Maxamed Ali Ahmed oo xoog dalka Soomaaliyeed ka tirsan guutada tobnaad taliska guutada ka tirsan qaybta 12aad ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa ciidamada qalabka sida waxaan ku bogaadina askariga sida uu dhaqmay in loo dhaqmo adigu waa isticmaalayaa dagarahaas inuu damco inuu askarta aqliga ka xado inuu damco dadka shaqaalaha dawladda inuu aqliga ka xado inuu damco mataqaanaa inuu saas dhagar ku soo geliyo xarumaha dawladdu inuu ku soo geliyo waa isku dayayaan sababta aan saxaafadda u yeertaan waa inaan fasiro dhagarahaas ayaa ugu weyn si loogu cimro qaato ama la isaga ilaaliyo waxaan kaloo rabaa askarigaas inaan guddoonsiiyo بريمي قدوسيو وعقلون مدحديدا xoog dalka Soomaaliya la kaashan doona dalcad darajada la kaashan doona diir badno inuu helo marka askari marka sida uu shaqeeyo hadii rabbi idmo askari sida uu shaqeeyo waxay noqon doontaa sida ay si ka sii fiican loo dhaqmi doona hadii ilaahay waana بريمي yareynaya